nolosha aadmiga waxaa ka jira xaalado amaba duruufo nololeed oo saameyntooda iyo dhibtooda leh waxaanay ka jiraan noloshaasi qaybo ka mid ah bulshada dhexdeeda dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad darro ee ku timaada maskaxda dhimirku waxa uu sababaa in ay dad tiro badani noqdaan kuwo darbajiif noloshooda ku dhammaysta noloshaasi ma aha mid inagu cusub ee waa mid maalin walba aynu ku aragno magaalooyinka waaweyn ee caasimadeenna Hargeysa ay ka mid tahay runtii aad iyo aad barto ugu xumahay ummadda faraha badan leh ee darbiyada jiifta ee aan haysan hooy ee aan haysan hu ee aan haysan gabood ee aan haysan waxay cunaan sidoo kale waxa ku nool guryaha dhexdooda dadka qaba xanuunka dhimirka ee ehelkoodu ay door bideen inay u adeegsadaan silsiladda iyo qufulka dadkii kale jaarashada wax u yeelaya oo nala qabsan loodhanay marka dee khasab ay u noqotay waxaa jira boqolaal kale oo ku dhex silsiladaysan goobaha cilaajada loo yaqaan oo magaalada Hargeysa markaad eegto ay kor u dhaafeen ilaa 160 cilaaja silsiladda iyo qufulku waa adeegyada ugu horeeya ee ay u adeegsadaan dadka xanuunsanaya ee loo keeno lama garanayo sababaha dhabta ah ee ka dambaysa iyo daawooyinka dhaqameedka lagu isticmaalo xarumaha cilaajada ah iyo sida loo daaweeyo midna waana duruufo adag oo dhibaato caafimaad darro ku sii abuura dadka bukaanka ah ee eheladoodu ay u raadinayaan inay caafimaad uga helaan goobaha caafimaad laakiinse arrintaasi ma aha mid xal u noqon karta sida ay ehelkoodu door bideen haddii aynu si kale u dhigno guryaha dhexdooda dadka qaba xanuunka dhimirka arrimaha qufulka iyo silsiladdu waxay sababi karaan in xaalad caafimaad darro ay ku sii korodho dadkaasi la nool xanuunka dhimirka ee aan waxba galabsan waxay walaal iyo wehel iyo ehelba u noqday qufulka iyo silsiladda muni waxay ka mid tahay hablaha da'da yar ee markii ay madaxa la kacday la kulmay falalka arxan darrada ah ee ka yimaada kooxaha dhalinyarada qaarkood kufsi arxan darro ah ayay kula kaceen qalbiga ayaa jabay waxaanay noqotay mid warwar iyo walaac ka qabta in qayrkeed ay ku aflagaadeeyaan dhibaatada ay u geysteen dadka ka xoogga badan ee dhaqan xumada ku caanbaxay waxaa sababay inay qaado xanuunka dhimirka walbahaarka iyo walaaca ay kala kulantay xaaladaasi ma jirto awood dhaqaale oo ehelkeed ay u hayaan si ay uga aagbedelato goobta dhibtu kala kulantay waxa ay ku nooshahay bulsho danyara dhexdeeda waxa inta badan qayrkeed ay kala kulantaa hadallo ka dhana dhibaatada aanay galabsan ee awoodda lagu muquuniyey waxay ehelkeed amaba waalidkeed ay door bideen intii ay nafteeda dhibaato u geysan lahayd in ay aqal Soomaaliga ah dhexdiisa ay lugaha kaga xidhaan ma jirto jawaab rasmi ah oo ay ka siin karto sida nolosheedu ay tahay laakiin dhab ahaan waa mid la odhan karo muna waxay u baahan tahay daaweyn iyo in qalbigeeda la nasiyo geesta kale ninkan da'da ah ee muuqaal ahaan jirkiisu idiin muuqda waa nin caan ka ahaa magaalada Hargeysa muddo dheer waxaase markii dambe ay sababtay cabasho badan oo ka timi in labada lugood iyo gacmahaba silsilad lagaga jabiyo isla markaasina guriga dhexdiisa uu ku noolaado isagoo oo maxbuusa عبد الله عمر وليك حاجه كحاجه يا جدع وقرنا يا محمد كور حالتيسا إلهي مبكر عندنا ماله ونصوح يا إلهي ينبري إلهي ينبر وكل يقول له بكل مقدر قال كوب شاكسية ويديد
hadduu doona weyga qaad ilaahay idinaa idinkaa qaad qofna laguma faraha laguma fiiqfiiqeen runtii dhibta haddii aanay adiga ku haysan walaalkaaba haysata haddii aanay adiga ku haysan adeerkaaba haysata haddii aanay ku haysan habroodeerkaaba haysata macni faamli keliya nahay waxaan u xidhan wada taabanaya dukaankii inay soo wada dhaweysa in la dhiirigeliyo qofka walaalkaya ee qaba xanuunka dhimirka in laysu gargaaraana waa mid xagga ilaahay iyo xagga aakhiro labadaba u fiican bulshada islaamka ah u gargaar oo ka faa'iidee in aad walaalkaa ka qaaddo bacadka inaad hoy u samayso inaad geyso goob caafimaad in aad daaweysa waa mid adiga ku habboon waa mid aakhiradaada iyo noloshaadaba gargaar u noqon karta ka daa silsiladda oo sii daa dawee oo gee goobaha caafimaad